Faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxaya qaraxii saaka ka dhacay magaalada Beledweyne iyadoo dadka ku dhintay qaraxyada magaalada Beledweyne ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Hiirshabelle Sakariye Maxamed Axmed iyo gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka Hiiraan Abuukar Cabdulaahi Maadey sida ay warbaahinta u xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo laftigiisa ka badbaaday qaraxyada ka dhacay magaalada Beledweyne. Tirada dhimashada ayaa kor u dhaafaysa sida la sheegayo 10 qof sida ila wareedyo kala duwan ay goobjoogayaal ay warbaahinta u xaqiijiyeen. ilaa iyo hadda waxay soo taraya khasaaraha hase ahaatee waxaan si taaka idila socodsiin doonaa waxyaabaha ka soo kordha qaraxa ka dhacay magaalada Beledweyne iyo hadba wixii warar ee dheeraad ah arrimahaasi ku soo kordha. Waxaad nagala socotaan channelka galka wararka. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka noo share garee, haddii aad hore noola joogtayna noo sii share garee si uu dad badan u gaaro. mahadsanid.